بسم الله الرحمن الرحيم شركة قولها وزيرة حكومة الفدرال كصوماليا أو maanta uu shir gudoomiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka mudane Saalax Jaamac ayaa waxa lagu ansixiyay laba arrimood oo muhiimad gaar ah leh waxaana ay kala ahaayeen heshiiska aasaasidda ciidamada heeganka ee bariga Afrika iyo soo jeedinta magacaabista taliyaha cusub ee ciidamada booliska Soomaaliyeed shirka ayaa waxa ugu horeyn warbixin dhinaca xaaladda guud ee amniga looga dhageystay iyo waliba dagaalka lagu ciribtirayo kooxda khawaarijta wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhigga oo ka warbixiyay guulaha ay gaareen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya toddobaadkii aynu ka soo gudubnay golaha waxa uu si aqlabiyada u ansixiyay soo jeedinta wasaaradda amniga gudaha oo soo jeedisay in taliyaha cusub ee booliska Soomaaliya uu noqdo General Sulub Ahmed Firin oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada General Sulub waa mas'uul xilal kala duwan ka soo qabtay ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana uu tababaro kala duwan ku soo qaatay wadanka gudihiisa iyo dibadiisa isagoo dhinaca aqoontana wax ku bartay wadanka gudihiisa iyo dibadiisa waxaana jaamacadda Makerere ee wadanka Uganda uu ka haystaa shahaadada masterka oo uu ku qaatay maadada nabadda iyo xalinta khilaafaadka dhinaca kale golaha wasiirada waxa uu ansixiyay heshiiska aasaasidda ciidamada heeganka ee bariga Afrika oo ay ku mideysan yihiin 9 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto kuwaasi oo kala ah dalalka Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, Sudan iyo Uganda. Heshiiskan ayaa ujeedadiisu waxa ay tahay sidii loo hirgelin lahaa ilaalinta amniga iyo nabadda iyo guud ahaan xasiloonida gobolka taasi oo ah mid ahmiyad gaar ah u leh dawladda Soomaaliyeed. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.